kulan wanaagsan ku soo dhawaada channelka Salma Vlog and Entertainment. waxaan idin haynaa sheeko aan isleenahay dadka qaarkii waxbay ka fahmi karaan oo ay cibra qaadasho u noqon kartaa. haddaad nagu cusub tahay subscribe qaybta guduudan oo gambaleelka ku dhufo si aad noola socoto muuqaaladeena dambe insha Allah. dad hore noola joogtana waad ku mahadsan tahay ayaan ku leenahay. waxaan idin haynaa maanta sheeko dhex martay wiil iyo gabar xiriir bilow ah uu ka dhaxeeyay. wiilkii ayaa maalin isagoo aysan gabadha ballan kala dhaxaynin yimi gurigooda hortiisa telefoonkana ka wacay kuna yiri banaanka soo istaag. si Kedis ah ayuuna u sheegay inuu sheeko ugu hayo. markii ay soo baxday banaankii ayuu hoosta ka soo saaray waraaq ama xaanshi ay ku qoran tahay ma isguursana. daqiiqada gudaheed ayaa wajigeedii isku bedelay gabadhii dhammaan midabada dunida oo dhan kuwo ay u muuqdeen. waa ay carootay oo ay xanaaqday sida xoorka oo kale. mise ku tiri gabadhii jawaab lama filaana ma awoodid miya inaad iguursato. waa maxay ma isguursanaa? weligayba waxa aan ku moodi jiray nin raga oo mas'uuliyadayda qaadi kara, waana sabab aan kugu jeclaaday. ma garanayo naftayda waxa aan qalad ka galay ama aan hadda kadib uga galayo ee aan adiga ku jeclaaday. inta uu hareeraha eegay inuu qof arkaya camal ayuu waraaqadii hoos u dhigay isaga oo qalbiga iska leh waa maxay adoontan doonaysa in aad iyada iibsato oo sidaa aad ku adoonsato. waxaase cajiib ahayd sheekada in lagu kala tegay oo jacaylkii bilowga ahaa burbur isku bedelay. waxay ka tarjumaysaa sheekadan in gabadha qalbigeeda la soo jiito erayada degdega ah ee Kediska lagu yiraahdana uu dhaawac u keeni karo. hana ula tagin wiilow. waa talo ahaan mid ay waayo jooga u siiyaan wiilasha guurdoonka ah oo gabadha ma isguursana lama yiraahdee ma ku guursadaa ayaa la yiraahdaa si kalgacayl iyo dareen ku jiro. gudaana daawadayaal intaaseen ku soo gabagabeynayna muuqaalkan oo aad ka daawanayseen channelka Salma Vlog and Entertainment. waa anigu xasan xayi cabdullaahi oo idin la socodsiinayay. intaan dib dambe isku arki doono nabadgelyo.